asxaabta dhammaan asalaamu calaykum awalan soo dhawaada aad baan kaga mahadcelinaya sida wanaagsan aad kanalkan ku taxan tihiin maantay waa introduction of digital marketing kusoo dhawaada koroska ugu horeyn san channelka iyo hore fiidiyada horeba aad ugu aragteen magacaygu waa shiine cabdulaahi shiine waxaan ku noolahay soomaaliya gaalkacyo soo dhawaada dhammaantiin waxaan rabaa intaanan kalaaska gudagelin laba qodob inaan kasii hadlo marka koowaad ilaa iyo daqiiqada u dambeysana nala sii socotaan gabagabada nuxuro baan sheegi doonaa haddii rabbi idmo insha allah ka horna classkansi qofku faa'iidada aan wadno uu qaato waxa waajib ku ah inuu haysto notekiisii iyo qalinkiisii sidoo kaleeto wixii su-aal uu qaban uu meel kusii qorto commentiga nagu reebo ama uu telegramka noogu soo diro ama shaqsi whatsappkaba si casharada dambe su-aalaha nooga jawaabno ama si personal ah nooga jawaabno intaasi waa introduction of myself and this course kusoo dhawaada digital marketing first course waa bilaabi doonaa in this presentation maanta waxaan kusoo jeedin doonaa horta marka koowaad inaan fahanno wuxuu yahay marketing landscape-ka ama digital marketing landscape-ka tan labaadna inaan kusoo darno learning of digital marketing qofka rabo inuu yani barto digital marketing-ka iyo meeluhu ka baran karo iyo yani bal horta digital marketing barashadeedu maxay tahayba sidoo kale jobska iyo shaqooyinka digital marketing laga helo ee typeskeeda digital marketing intay kala baxdo intaas baan insha allahu tacaala ku sharixi doonaa waxaan rajeynaya inaan si dhow oo dhib la aad ila socon doontaan haddii rabbi idmo waxaan rabaa inaan quick noqdo effectivena noqdo sidoo kaleeto aan boosiiyo insha allahu tacaala wixii nuxurkiina la fahmo marka horta ka soco oo aniga horey baan suukin sheegay baan u malaynayaa digital marketing waa maxay sidan hore idinkugu sheegayba digital marketing waa ficil kastoo dhiirigelinaya in wax la iibsado iyadoo la marayo aaladaha internetka yani iyadoo intaas loo adeegsanayo goobta la adeegsanayana ay tahay leverage journalistka sida siege engineer-ka ama in meelaha wax laga baaro siege engineer-ka waxaa la yihahdaa engineska ugu waaweyn adduunka qofka markuu wax geliyo wax baaro in maxaan ku rahdaa waxa aad rabtay xaysiin ahaan qofkaas ku tustid ama social media channelskooda isticmaashid sida facebook iyo instagramka ama email dadka email aa ugu dirid iyo waxyaabaha kaleeto sida ku xiran runtii websiteska si guud digital marketing waa ficil kasta oo dhiirigelinaya in wax la iibsado saad ogtaan marketing waa caan hadii lagu yihahdo marketing qeex waa suuqgeyn af soomaali suuqgeyntii oo laga dhigay la casriyeeyey oo la marayo internetka intaas weeye intaas baan definitionka of digital marketing ku qeexi karayaa sidoo kaleeto learning of digital haddaan u gudubno qodobka labaad ee barashada digital marketing arday badan waxaa laga yaabaa inay doonayeen inay bartaan digital marketing runtii ay caqabad weyn ay ka wajaheen waa run way jirtaa caqabadaas digital marketingku sida caadiga waa skill waa xirfad high level ah xirfadaha ugu qiimaha badan maanta ku jirta adduunka sidoo kale jaamacadaha qaybtood waxay ka dhigaan master bay ka dhigaan ama degreega lagu daraa BBA-da mostly laakiin waa skill waa xirfad waana xirfadaha maanta adduunka mid kamid loogu baahida badan yahay sidaas awgeed waxaana sababaysa teknolojiyada iyo covid-19 kii oo siyaaday sidaad la wada socotaanba markii adduunkii uu xirxirmay lockdown qofkiina homekii uu ka shaqeeya bay noqoto maadaama qofka homekii ka shaqeynayo shaqooyinkii ugu muhiimsanaa la qaban karo availability ku ahaaday wixii online-ka related la abay ahaadeen ugu horeyso sales wixii online lagu sameyn karo oo dropshipping la xiriiro ha ahaadeen wixii packaging ah oo la kala gudbinayo dalto dala dhammaantood wixii deen codiskii shaqadiina loo qabto physical processkiina data ahaana la geliyo marka digital marketingku waxa oo business adduunka ka jira oo u baahanaya suuqgeyn casri ay samaystaan oo waxay u baahan yihiin inay u maraan online maadaama dee adduunkii jannaladii horeeto laga baxay tviyadii sidii hore wax loo xaysiin jiray laga gudbay marka maadadii in la barto digital marketingka waxay noqotay skill xirfadaas runtii muhiim u ah cajaa'ib oo dad badan ay adduunka maanta ay xiiseynayaan ka shaqsiyanka cabdullaahi ahaan anigu labadan website oo hadda meesha uga jeedaan udacity iyo digital marketer baan kasoo bartay digital marketingka waana runtii meelaha ugu qiimaha badan xagga
in laga barto digital marketing. haddaan idin tuso midda tan la yiraahdo Udacity saad u jeedaan, inkastoo de koorskeedu yahay fundamental oo uusan ahayn koors aad u ballaaran oo waxaa lagu sharaxayo ilaa 9 qodob skill ay kala duwanaayeen, haddana waa aad buu wuxuu yahay effective, aad buu u nuxur badan yahay. waxyaabaha marka cajiibka kuwa caqabad ardo badan oo Soomaali ah waxaa ka mid ah kooraska qiimihiisa $800 saddexdii bilood, qofku 4 bilood buu ku dhammayn karaa, bishii $229. runtii caqabadaha ugu waaweyn oo dadka Soomaalida wajahaan bay ka mid tahay in koorasku aad runtii u qaali u yahay. waxaa kaloo yani kooraskani lagu baranayaa fundamental ma aha in detail wax la xiriira oo la xiriira maxaan ku rahdaa kooraskan. sana hore idinku wada sheegay insha allahu tacala waxaan isku dayi doonaa intaan ka gaarno inaan marka koowaad basicii dadkii aan fahansiino digital marketingkii wuxuu yahay qaybihiisa, intaa markuu fahmo qofkii haddana aan detail usii galno xabad xabad aan usii dhigno waa arki doontaan koorsooyinka insha allahu tacala ee soo socda. Udacity waa mid ka mid ah jaamacadaha nano degree wax la yihahda bixisa shahaado ah oo qofkii hadda tan mise nano degree buu qaadanayaa. waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan xagga online wax laga barto Mareykanka laga leeyahay. runtii aad bay u qiimo badan tahay fundamentalkeeda, laakiin waa qaali. waxaan isku dayi doonaa wax kasta oo Udacity ku jirto inaan si free ardada Soomaaliyeed aan ku barno. hadafka iyaga ka ama media ahaan waxa weeye in dadka Soomaaliyeed gaab waxbarasho oo waxa ku jira skillka la xiriira. hadafka iyaga inagoo og yani waxaan barana dadka qiimo yihiin, qiimo ku fadhiyaan effective, haddana waxaan doonaynaa inaan la soo qabadsiino dunidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee aad u xiiseynaysa inay bartaan maadooyinka kan xirfadda ku xiran ee online-ka looga shaqaysan karo qofka isagoo gurigiisa uu joogo internet isticmaalayo. sidaas awgeed baan inagu free fundamentalisku dhan ku bari doonaa insha allahu tacaala. objectiveka iyagana waa kaas. meesha labaad ee ugu weyn laga baran karo digital marketing anaguna aan shakhsiyan kasoo bartay waa digital marketer. website-ka caanka brand la yirahda iskale Americana, ninka kan baa iskale. waana website runtii aad qiimo u leh koorsooyinka digital marketing oo detail ah baa ku jira bit by bit, ilaa si gooni anigu 3 baan uga diyaarshay email marketingka iyo Google Adska. haddana soo mistriga $9,000 buu gadaa kooraska guud, inkastoo foundation ay tahay. sidoo kaleeto some specialist oo types baa ku jira marka Facebook oo kaleeto uu ka hadlayo tan oo kaleeto, laakiin maadooyinkan uu sida goonida u diyaariyay email marketingka ka mid ah oo runtii isaguna qaali aad u ah. waxaa kaloo ka mid ah youtube-ka oo adskiisa oo hoosta Google-ka. insha allah iyagana waa ku arki doontaa markaan gaarno koorsooyinkaas la xiriira. sidoo kaleeto waxaa jira playbooks wax la yihahdo uu leeyahay janaalkan oo yar yara oo runtii tixooyin ah sida loo maro adka loo sameeyo, oo playbookska aad bay badan yihiin ayagana waa effective aad u fiican, laakiin dee waa qaali. qof Soomaaliya dhalinyaro oo gooyo ma jiro inta tan. sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay wixii takhasus gooni ay yihiin ay ahaan coverage karan haddii hadda wixii dhan dadka Soomaalida ku wada bari lahaayeen runtii caqabad saa'ida weeye. sidaas awgeed bal mar labaad idiin sheegay inaan muhiimadda ay leedahay yani digital marketing in qofku uu barto. maadadatan digital marketingka ka ahaan ka Cabdullaahi ahaan waxyaabahan aadka ula yaaba waxaa ka mid ah waa nomad. waa shaqo yani meel walba joog. nomad waxa la yihahdaa waa xoolo dhaqato soo maaha nomad remote work baa la yihahdaa. waxaa laga yaabaa qofka isagoo yani waddankiisa ka taga dal kale joogan oo xirfadii dadkii clientiska intaba u shaqeeyo. marka objectivekayga mar kaleeto waxa weeye inaan soo gaarsiino dadka Soomaalida nomadka ah. innaga xoolo dhaqataynu nahay inaan xoolo dhaqato digital aynu ka dhigno oo maxaan ku rahdaa aan samayno society iyadoo dhan waddanka koowaad adduunka ugu shaqada badan ee shaqooyinkan qabta oo Pakistan iyo India isku yihiin. labadaasaa isku haysta. midna codeka wixii la xiriira web developmentga appka, midna digital marketingka iyo designka labay kala haystaan. Pakistan oo kaleeto web research si qoraysa 2019 3 bilyan kaliya bay kasoo xareysatay freelancerka oo dalka dibadda ka bay dadkeedu kasoo xareysay 3 bilyan. marka waxaan rabnaa inaan abuurno society Soomaali ah oo nomad digital ah kuwaasoo shaqo kasta oo online-ka laga qaban karo isku xiran. insha allahu tacaala groupka videoga damadiisa kusoo share garayn doonaa
inaan sameyno dhammaan ciddii xiiseynaysa koorsooyinkii everything wax walba way helaynaa haddii rabbi idmo. Laakiin waxaa muhiim ah dadka in la helo diyaarsan oo fursadahaas muhiimka ah ee adduunka kusoo siyaaday ka faa'iidaysan karta. Inta back haddaan usoo laabto kooraska digital marketing, labadaas meelood waa labada meelood ugu caansan oo laga baran karo. Sidoo kale waxaa jirta Udemy oo iyadana runtii koorsooyin badan bixisa. Laakiin Udemy waxay uga duwan tahay kuwa kale waxay uga duwan tahay iyadu ma laha wax rating professional. Waxaa laga yaabaa qof aad u khibrad hooseeya inuu wax kusoo geliyey. Waxaa sidoo kaleeta laga yaabaa qof aanba dee maadadiiba waxba ka aqoon iska soo geliyo iska soo baayacayo. Qiimaheedana aad buu u yaryahay laakiin dadka fundamentaliska waa kulama taliyan in Udemy ay wax ka bartaan sababtoo waxay ku jahwareerayaan. Inkastoo koorsooyin effective ayaga laftirkeeda oo badan laga helayo. Haddii aan sii wado aan u galo digital marketingkii qofkii uu bartay waxay tahayna waa kasoo sheekeynay videogana soo koobnay insha allahu taala isku dayaynaa shaqooyinkeeda. Saan hore kugu sheegay dadka maanta adduunka ku nool waxaynu joognaa goob yani wax walba internetka ay gelayaan. hadday tahay bay biil saad halkan uga jeedaan grocery haddii la iibsanayo shopping gift wax walba. Marka trendigaas sare u kacaya ee digital marketingka ah runtii wuxuu sababay in maxaan ku rahdaa aan inagii dadkii digital marketerska ay runtii shaqooyin badan ay adduunka maanta fursada ay u noqoto. Labadan website baan kusoo qaadan doonaa insha allahu tacaala digital marketingka oo ah laba kala ah. Si guud digital marketingka 3 shaqo baa laga helaa. 3 qaab baa yani looga shaqaystaa. Ta koowaad waa wixii qofkii inuu isagu abuurto wax la yiraahdo agency ama agency isaga uu leeyahay oo kale sida iyadoo kaleeto media agency xaysiimaha sameeya. Agencygaas oo national iyo international ba noqon kara dalkaysa ama international noqon kara. Markaasina u baahan wax la yiraahdo cold yani customer yani macaamiil inuu hadda bilaabo oo macaamiil uu raadiyo isagoo xirfadiisa isticmaalaya. Qofka digital marketerka waa maxay inuu suuqgeyntii casriga ahayd uu sameeyo isagoo xirfadiisa sameysanayo inuu isagana klientigiisa dadka u baahan targetka u baahan in loo sameeyo uu raadsado waa mid. Midda labaadna meelaha laga helayo sida websiteka Upwork oo kaleeto iyagana waxaa la yidhahdaa waa warm traffic yani dad waxaa imaanaya u baahan in loo sameeyo shaqadii adiguna waxaa tahay qof xirfadii yaqaana. Marka Upwork iyo pageka la midka ah freelancerska yimaadaan Upwork iyo Fiverr iyo Billable 3 website baa ugu caansan. Dadka waxay sameeyaan qofka shaqooyinkii baa lasoo dhigaa kadibna dadkii baa apply gareeya. Sidoo kaleeto waa maxay qof baa soo dhigay freelancer wuxuu qabto qof shaqadii u baahan baa dooranaya oo apply gareynaya. Labadaas shaqo bay iyaguna Upwork iyo Fiverr labaduba ku shaqeeyaan. waan idin tusi doonaa. Qaabka u dambeeya oo saddexaad waa B2B waxa la business to business. Qofkii inuu sameysto waxa la yiraahdo pageka ugu caansan ee adduunka professionka laga helo waa LinkedIn runtii waa mid social mediahana ka tirsan wax walbana leh aadna professionalka shaqooyinka adduunka meelaha laga helo ugu badan ku jiro. Shaqada qaab loo raadsadana jirto. Sidoo kaleeto qofkaas kaleeto waxa B2B business to business isagoo waa business waa agency oo kaleeto yani shirkadaha inuu message u diro uu ku dhiirigeliyo yani inay samaystaan digital marketing kadibna uu shaqadii halkaas uu ka helo. Waxay yara isugu soo dhow yihiin midda koowaad oo cold marketing ama qofkii inuu uu samaysto wax isaga cusub markaas bay isugu soo dhow yihiin. Laakiin tan waxay kaga duwan tahay waa targeted dadka LinkedIn ku jira professionalska baa raadsanaysaa. Insha allahu tacaala sidoo kale Facebook oo meelaha ugu badan ee shaqooyinka laga helo onlineka digitalka ay ka mid yihiin. Digital marketing shaqooyinkeeda runtii aad bay usoo badanayaan saan mar hore idiin sheegay teknolojiyadda iyo coronaviruska oo sababay. Marka sidaas awgeed qofkii waxaa lagaga baahan yahay inuu yahay qof diyaarsan. Waxaad aragteen dad badan oo dhahaya yani beerdheeri $100 samee. Soomaalida beri dhexe forex ka soo baxay oo iyada laftirkeeda runtii maadaama jig wax laga samayn karaa ahayd laakiin de khibradii oo ku filan iyo sida loo buunbuuniyey oo ka sarmadhay waxay sababtay inay dad badan runtii ku khasaaraan. Sidoo kaleeto beriyo dhexe waxaa jiray wax la yidhahdo affiliate marketingka ama clickbankiga dad badan oo inay runtii iyagana ay dhaheen runtii waa ku sharaxi doonaa koorsooyinkeena ka hor dhici mayo. Laakiin mar kasto aad aragtid si fudud lacag ku samee ama si fudud onlineka lacag ku samee waa fake. Waa qof doonaya inuu adi lacag kaa sameeyo. Adduunkani ma jirto meel si fudud lacag looga sameeyo. Waxa kaliya ee qof uu lacag ku samayn karaa waa inuu dadaalo juhdiga lagaga baahnaa uu yimaado la yimaado. Matalan waxaa arkaysaa beerleyda waxaa samaysaa $50 ilaa $100. Qofka beerleyda $50 ilaa $100 sameynaya waa qof horta beerleyda kasoo bilaabay inuu 10 senti sameeyo
wax basically qofku markuu fahmo uu barto oo practice gareeyo buu $100 samayn karaa weliba $1,000 buu berdaily samayn karaa laakiin maxaa ka horeeya tartiibil asaasiya noloshii dhan baa ka horeysa marka in this course dadka kuma dhiirigelinayo anigu inaan mana lihi berdaily waxaa sameynaysaan intaasoo $100 laakiin qofkii steps by steps aan halkan ku sharaxi doona sameeyo oo barta practice gareeya waqti iyo juhdina geliya runtii waa hubaa inuu samayn doono ka badan iyo intaas haddaan idin tuso linkidian waxba idinka tusmaya laakiin upwork oo kaleeto haddaan idin tuso upwork saan idiin sheegay waa majalad ay ku kulmaan safxa ay ku kulmaan dadka shaqooyinka soo post gareeya dadka apply gareeya iyo sidoo kale freelancerska projectorka soo publish gareeya kadibna ayaga la apply gareeyo tusaale ahaan aniga haddaan ahay freelancer of digital marketing anaa isqoraya digital marketing freelancer baahan shaqooyinkaas soo qabto wixii dhammaan gelinaya kadib qof u baahan bay arkaya wixii horay buu anuu isoo aadaya yani marka waxyaabaha aadka dadka koras dhan iyada u goonaya baan ka samayn doonaa upwork sida shaqo looga helo waxaa laga yaabaa in badan aad aragteen upwork ka shaqeeya laakiin waa one of the criticals anigoo kaleeto waa arki oo idin tusi doonaa 2015 bishii 12aad baa upwork account ka samaysta shaqadii ugu horeysana 2019 December baan upwork ka helay marka tani waxay idin tusinaysaa insha allahu tacaala yani inaysan jirin wax fudud in this life aad bay critical u yihiin iyagoo dhan ay u adag yihiin marka laakiin qofkii dadaalo oo nuxur sameeya buu gaarayaa digital marketingku dhowr qaybood buu qabta waa arki doontaan laakiin haddaan digital marketing expert qof idin dooro dadkani waa dad digital marketingka yaqaana marka qofkan oo kaleeto iyo dadka heleen qofkii wuxuu ablay qofkan xilli dhow baa laga yaabaa Bangladeshkan inuu bilaabay $700 halka saacad $7 buu ku shaqeeyaa ka $1,000 buu ka helay total inta meesha ku jiray gabadhan 7,000 bay ka heshay yani qofkii waa lasoo publish garaynaya halka saac $35 buu ku shaqeeya waana top rated dadka sidoo kale agent wax la yiraahdo uu leeyahay agent isagoo goonaa 2,000 in gareeyay kan hindiga kale 30,000 hindi iyo Pakistan baa u badan kan 10,000 buu helay Maxamed Saalax Pakistankaas runtii dadka Soomaalida ay ku jiraan saas uma badna laakiin dad Soomaali badan oo lacag ka sameeyay baa jira translatorka ugu badan turjumaanka sidoo kale designkana laga yaabo in wax kaga jiraan marka haddaad hadda fiirso digital marketing dad islaantana kale Philippines-ka $80,000 bay shaqaysay yani wax ku xadidaya ma jirto markaa khibrad leedahay wixii ay haystay ninkaan kaleeto Mareykanka $60,000 buu ka shaqaystay intuu meesha ku jiray ninkaan kale $300,000 buu ka shaqaystay Mareykan dadka reer galbeedkuna waa wadamada ugu qaalisan bay ku jiraan lacagaha ugu badan ayagaa ka hela $400,000 baa agensiga shaqaystay million baan tusi karaya million wax ka badan yani wax ku xadidaya ma jirto marka qofkii xirfadda digital marketingka uu barto inuu yani adduunka uu shaqo u raadsado waa nomad digital marketing job oo adduunka meel walba aad rabtid meel walba aad joogtid haddaad internet haysatid xirfadiina leedahay aad kaga shaqaysan jirtid introductionka maantay intaasaan yaro kusoo koobaya sidoo kale haddaan google-ka tuso google adska one of the bestisku ku jira oo shaqooyinka looga helo waxyaabaha dadka Soomaaliya jooga laga yaabo inay xanima wax ka mid ah xilliyadii anigu aan ogaaday bijijka kan xitaa ma jirin dalka mastercardisku aad baa available ugama ahayn yani qofka shaqo uu helayaa sidoo kale course soo socda waan ku taray qof xagee lacagta loogu soo shubaya hadduu shaqo helo waa mid ka mid ah caqabadihii ugu waaweynaa ee runtii halka kan iga qabsaday saad wada socotaan baa halkan oo jeedaan google-kii baan ku jirnaa adiskii ninkaan kale Slovenia kasoo jeeda 90,000 ninkaan 100,000 $100,000 ninkaan waa la mid wax kasta geli waa u baahan tihiin oo la xiriira digital marketing Facebook adska sorry la jeeda Facebook adska isagana 80,000 30,000 waa yani total qofka intuu ingareeyay wey halka saac $25 buu shaqeeya badgeskan oo kaleeto waa calaamadaha ugu sarreeya lagu yaqaano dadka top ratedka ee khibradda leh sidoo kaleeto 200,000 million agenciyada kaleeto million bay sameeyaan haddii lasii rogrogo waa laga arkayaa yani dadka si u kala active garaysan yihiin online-ka ugu jiraan buu usoo kala hormariyaa oo khibradna ay u leeyihiin badgeska si u kala leeyihiin marka qof haddaad raadinaysid kuma uu tusayo qof
maqan kuma tusayo. Laakiin qof marka online ah oo laakiin sidoo kaleeto portfolio fiican iyo rate fiican iyo feedback fiican haysta buu soo horumarinayaa Facebook. 40,000 agenciyadoo kaleeto ugu lacag badan. Waxaan waa Facebook aad sidoo kale haddaan email marketing tuso. Email marketing kuwa ugu lacagta badan buu ku jiraa. Teknolojiyaddu waxyaabaha waxaa ka mid ah cajiibka ah aan joogsanaynin. Wax kasta oo social mediana way hoos tagaan. TikTok oo kaleeto oo wuxuu ku jiraa TikTok marketing. Dad baa ka shaqeysta soo ma jeedaan. Social media kan 9,000 buu ka helay. So TikTok waa cusub yahay. Snapchat-ka waa la mid. Snapchat ads. Snapchat-ku waa shirkadda ugu qaalisan ee xayeysiin laga samaysto. Waxaa laga yaabaa $50,000 bay xayeysiimaha qaybtood ku sameeyaan. Marka laga reebo xayeysiimo yaryar oo Jio oo kaleeta waxaas oo dhan waa shaqooyin waa wax ku xadidaya ma jirto. Digital marketing-ku aad buu u ballaaran yahay runtii. Sidoo kaleeto haddaan mir ama laba idin sii wado digital marketing-ku wuxuu u kala baxaa ilaa dhowr qaybood. Waa tan kooraskan ku baran doonaa insha Allah. Digital marketing-ku wuxuu qaybsamaa qaybaha digital marketing ay ka kooban yahay haddaan u guda galno. Digital marketing-ku 6 qaybood oo waaweyn buu runtii ka kooban yahay. Waxaa laga yaabaa dad badan inay arkeen yani digital marketing ay ku wareereen. Soo koobso 3 qaybood baan u kala qaadi doonaa haddii Rabbi idmo. Tan ugu horeysa koorasyadeena soo socotaan ka hadli doono waa affiliate marketing. Tan ku xigta waa social media marketing, influencer marketing, email marketing iyo COA iyo SIM. 3daas. Marka 3da hoose iyo 3da wada sare marka laba way wada xiriiraan midda koowaad iyo midda saddexaad. Influencer-ka iyo affiliate-ka runtii aad bay isugu dhow yihiin. Waan sharixi doonaa. Affiliate marketing waxa weeye qofku inuu xayeysiiyo badeeco oo linkigeeda uu haysto adduunka meesha doona ha ka joogtee. Oo linki intuu helo wuxuu ku xayeysiiyey linkigaas uu dad badan sii share gareeyo. Lacagtan uu ka helo commission buu ku leeyahay qof kastoo linkigiisa gatay buu commission ku leeyahay. Asaga halkaas lacagta laga sameeyaa. Social media marketing-ku oo ah midda ugu ballaaran ilaa 6 ilaa 9 baa sii hoos tagta. Facebook, Instagram baa soo hoos tagta. Runtii isagana waxa loogu xayeysiiyaa mid kasta platform ad oo gooni ah buu leeyahay. Wax lagu xayeysiiyo istiraatiijiyad baa isticmaalaysaa. Yani qofka service baa u qabanaysa. Qofkii charge waxba lacag ba ku dalacaysaa ka qaadanaysid. Social media-huna lacag bay kaa rabaan. Qofkaas labadaba marka insha Allah tacaala waa arki doonaa. Qofkii waxaa laga rabaa Facebook oo kaleeto hadduu xayeysiinayo waa aragteen promotional baa aragteen. Facebook qofka lacag buu rabaa. Dee qofka service-kan qabanayo khibradda lana lacagtiisa buu kaa rabaa. Influencer marketing affiliate-ka hoos tagtaa. Influencer-ku waa qof leh tusaale ahaan Soomaalida oo kale fanaaniinta ugu badan. Waxaa laga yaabaa qofkii inuu influencer ahaan yani dad badan baa ku xiran inuu shay online-ka kaaga tuso. Fanaanada adigu aad soo samayso oo magaca ku qoran yahay inuu ku xayeysiiyo. Koob alle inuu shaah ku cabo, chocolate inuu cuno. Waxyaabahaas oo kale influencers-ka waa dadka dad badan leh. Maalin waa arkaysa Cristiano Ronaldo Coca-Colada. Cristiano Ronaldo waa influencer. Marka shirkadda Coca-Cola Days intaa ku khasaartay sababtoo waa qof caana. Marka in this type influencer-ka asagana mar dhan baan ka sheekeyn doonaa. Qofkii audience badan haysta influencer weeye. Email marketing waa qofku in yani adduunka maanta digital bay noqday. Qof kastoo telefoon isticmaala email buu leeyahay. Ma jiro soo runtii maaha. Ama Gmail buu leeyahay oo appkii wuxuu kala degaa. Ama Apple-kii buu ugu xiran yahay. Marka qofka email-kiisana fariin in loogu diro gooni oo adiga kaa socota oo adiga kaa hadalsana waa email marketing. Search engine optimization-kan wuxuu hoos tagaa web development-ga. Waa in tusaale ahaan haddii aan tusaale idinka siiyo Google-ka haddaan halkaasi qoro Cabdullaahi magacayga oo kaleeto ama ma ahan be wax kale aan qoro ads ama aan qoro bimatalan haddii aan qoro digital marketing. Haddaan digital marketing qoro waxa ugu soo hormaraya Soomaaliya ii soo saaray dayax shirkadaha Soomaaliya ka jira ii soo saaray internet marketing qeexitaankiisa ii soo saaray. COA waxa weeye why tan ay ugu kormartay. Su'aasha koowaad
waxaa la yidhi si caadiya maamaha waxaa jirta si oga isticmaalaan date bodiska waxaa lagu qariyaa pageka labaad 85% dadka adduunka googleka wax ka baara pageka koowaad ma dhaafaan oo pageka labaad ma tagaan marka objectiveka COA-ga oo dhan waa maxay in uu xogtii ama qoraalkaaga ama website-kaaga ama keywordkaaga uu halkan pageka koowaad ku geeyo cidna pageka labaad ma gaadho marka iyaga laftirkooda sii kala ah waa baran doontaan kan uu kan uga soo kormaray yani qofka waxa ugu horreeya waxaa laga yaabaa inuu articleka ugu horreeya uu arko uu qaato taasina waa waxa la yidhahdaa COA ama search engine optimization oo baaritaanka pageka koowaad qofka googleka uu soo gaaro ama googleka maaragtay dhammaan waxyaabaha la xiriira sida bingi oo kaleeto googleka la midka tan labaadna waxaa la yidhahdaa SEM ama search engine saad uga jeedaan search engine marketing waa wax lacag qofka lagama rabo laakiin tan wixii tiibuu lacag ku bixinaya hadda haddaan bimatalan aan qoro shay shoes oo kale hadda haddaan qoro rabo soo maaha shoes hadda haddaan qoro amaba sorry upwork ba ii qor upwork waa garanaysaa waa website-ka daayeto hadda inkastoo xayisiinta uu xirayo waxaa laga yaabaa sometimes in upwork waxa ugu soo kormareeya uu noqdo iyada aada ama meel kaleeto aan idinka tuso fiverka aad soo ma jeedaan waxay igu kormartay fiver waa qofkan aad buu sameeyey waa xayisiin in yani halka ay ugu soo hormarto waa wuxuu lacag ku bixiyey maaha yani wuxuu iska helay oo fiver inay pageka koowaad iyadoo isla fiver ereyga la raadinaya fiver uu yahay ay koorskeeda lacag ku bixiso in halkaas uu soo baxo googleka ay lacag siiso baa zim la yidhahdaa yani qofka waxa uu baranayaa sida uu isagoo lacag bixinaya uu siijka ama kuuriska marka holka qofka wax weydiiyo oo halkaasi ugu soo hormaro sidoo kaleeto iyadoo caadiyana watan tanna waa tz oo yahayd marka online course haddaan halkan geliyo online course haddaan geliyo tan ugu koreyso waa xayisiin scientific pageka la yidhaahdo oo garanaysan koorsooyinka lagu wada sameeyo tan ku xigtana waa free oo waa COA waa COA weye yani halkan free bay tan kusoo fuushay laakiin taa lacag bay kusoo fuushay kaga kormadhay marka labadaasa bay u kala baxaan iyaguba insha allahu tacaala every xabo oo iyaga ka midana waa wada geli doonaa haddii rabbi idmo sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan idiin sheego telegram baan insha allahu tacaala sameynay affiliate marketing insha allah koroska dambe aan ku sharxi doonaa waxaan sameynay haddii rabbi idmo telegram qofkii hadduu su-aal rabo in community aan dhisnaan doonaynaa soomaali oo nomad workisa sidoo kale facebook waxaan ka sameynaynaa group oo qof kastoo soomaali ah oo u baahan yani inuu xirfadiina barto xirfadda insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa anaga khibrad ahaan waxaan u lahay digital marketinga laakiin nomadiska shaqooyinka laga qabto oo onlineka aad bay u fara balaaran yihiin waxaa ka mid ah developmentigii ama website qofka sida loo dhiso waxaa ka mid ah programmingkii haddaad u baahan tahay in maanta wax qof uu app kuu sameeyo inta badan dee meesha ugu habboon oo qof kasta uu aado waa hadda adduunka waa inuu onlineka kasoo raadiyo marka insha allahu tacaala videoga subscribe-ka insha allah saara share gareeya insha allah telegramkana linkiga hoose ku jirta kusoo biira aad baa umahadsantiin